الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد. markii ay dhamaatay ghaswadii fatxu Makka ayaa waxa dhacday ghaswatu Hunayn. sababteeduna waxay ahayd in laba qabiil oo Thaqiif iyo Hawaazin la yiraahdo iyo qabaa'il kale oo ku darsamay ay dooneen inay muslimiinta ku duulaan inta aanay muslimiintu ku soo duulin. qabaa'ishana waxa madax u ahaa Malik ibn Auf oo Hawaazin ka tirsanaa. markii haddaba rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu arrinka maqlay ayaa wuxuu la baxay ciidan 12 kuna. haddaba muslimiintu markay jidka ku sii jireen ayaa qaar ka midihii ay iscajabiyeen oo ay yiraahdeen la nuqlab al-yawma min qillah, maanta la nagaga adkaan maayo yaraan. markii ay gaadheen togii Hunayn ayaa waxa ay la kulmeen cadowgii oo kob ku jira. dabadeetna cadowgii muslimiintii leeb ayuu roobka kaga dhigay, waayo meeshii laga filanayay meel ka sokaysa ayay galeen. dabadeetna muslimiintii way wareereen waanay jabeen. rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo koox saxaabadiisii ka mid ayaa sugnaaday. rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam geesinimo intuu ka qabo xaggii cadowga ayuu ordayay isagoo leh ana nabiyyu la kadib ana ibn Abdul Muttalib, anigu waxaan ahay nabi beenna maaha, waxaan ahay ina Abdul Muttalib. awowgii ayuu nisba sheeganayaa. intaa kadib al-Abbaas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu ayaa qayliyay, markaasuu yidhi yaa asxaaba baycati ridwaan. markaasay ansaar yidhaahdeen labbayka labbayk. dabadeetana way soo noqdeen. ilaahay ayaa muslimiintii sugay, rasuulkiisana u hiiliyey, waxaanu soo dejiyey ciidan aan la arkaynin. dabadeetna cadowgii ayay weerareen, waxaanay la dagaalameen dagaal adag ilaa ay markii dambe jebiyeen. muslimiintuna ay cadowgii eryadeen iyagoo laynaya oo qafaalanaya. halkaana waxa ay ka heleen khaniimo aad u fara badan oo gaadhaysa 24,000 oo neef oo geela iyo 40,000 oo adhiya. ilaahayna subxaanahu wa tacaala ghaswadan quraanka ayuu kaga hadlay. allah wuxuu yidhi laqad nasarakum allahu fii mawaatina kathiira. ilaah baan ku dhaartay xaqiiqe, ilaahay wuxuu idinku gargaaray goobo fara badan. wa yawma xunaynin id acjabatkum kathratukum, wuxuu kaloo ilaahay idiin gargaaray maalintii Xunayn wakhti ay idin yaab gelisay farabadnidiinu. falam tughni cankum shay'a, farabadnidiinina wax idinmay tarin. wadaaqat calaykum al-ardu bimaa raxubat, dhulkiina cidhiidhi ayuu idinku noqday isagoo waasic ah. dumma wallaytum mudbiriin, dabadeetana waad jeesateen idinkoo dhabar jeedinaya. dumma anzala allahu sakiinatah, intaa kadib ilaahay ayaa soo dejiyey xasilooni calaa rasuulihi wa cala almu'miniin, rasuulkiisa iyo mu'miniinta ayuu ku soo dejiyey. wa anzala junuudan lam tarawha, waxaanu soo dejiyey ciidamo aanidun arkayn. wa cadaba aladiina kafaruu, kuwii gaaloobayna wuu cadaabay oo gacmihiinna ayuu ku cadaabay. wadaalika jazaa'u alkaafiriin, kaasina waa abaalka ay leeyihiin gaaladu. markii ay dhammaatay ghaswatu Hunayn ayaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu haddana ku duulay Taa'if oo cadowga badh ka midihii uu baxsaday. markii uu rasuulku sallallahu alayhi wasallam Taa'if gaadhay wuxuu la kulmay cadowgii oo Taa'if dhufays ka samaystay, haystana quud ay sanad cuni lahaayeen. haddaba markay gaaladii arkeen muslimiintii oo soo socda ayay leebab roobka kaga dhigeen. saxaabo fara badanna way dhaawaceen, 12 saxaabina way dileen. dabadeetna rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuu iskaga tegey iyaga iyo dhufaysyadoodiiba. waxaanuu yidhi allaahumma hdi thaqiifa wa'ti bihim muslimiin, ilaahayow reer Thaqiif hanuuni, waxaanad noo keentaa iyagoo muslimiina. dabadeetna rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuu noqday, waxaanu tegey meel Maka ku dhow oo Jiciraan ah la yidhaahdo si loo qaybsado furkii dagaalkii Hunayn la soo qabsaday. maalma kadib ayaa waxaa yimi wafdi reer Hawaazina oo islaamay.
dabadeetana rasuulku sala allahu calayhi wasallam wuxuu kala dooransiiyey inay xoolaha qaataan iyo inay dumarkooda iyo carruurtooda qaataan. intaa kadib waxay doorteen inay dumarkooda iyo carruurtooda kaxaystaan, xoolahana iskaga tagaan. intaa kadib rasuulku sala allahu calayhi wasallam wuxuu ku nagaaday Jiciraana 13 habeenna wuu joogay, dabadeetana wuu cumraystay oo Maka ayuu galay. intaa kadib wuxuu ku noqday Madiina. muddada uu ka maqnaana waxay ahayd 2 bilood iyo 16 maalmood. markii uu rasuulku sala allahu calayhi wasallam Madiina uu ku noqday kadib, waxa u yimi wafdiye fara badan oo diinta Ilaahay soo gelaya. diinta islaamkuna waxay ku dhex faaftay carab oo dhan. markay ahayd sannadii 9aad ee hijriga, waxaa dhacay duulaankii Tabuk. dagaalna muu dhicin. sababtiisuna waxay ahayd rasuulka sala allahu calayhi wasallam waxaa soo gaadhay oo war loogu keenay in niman reer Ruumi ay is urursadeen oo Shaam ay isku urursadeen, aanay doonayaan inay muslimiinta la dagaalamaan. dabadeetana rasuulku sala allahu calayhi wasallam ciidan ayuu diyaariyey. ciidankaasoo gaadhaya 30,000. waxaanu ka dalbay ciidanka qarashkaa lagu tabaabushaynayo saxaabadiisii aqniyada ahayd. saamiga ugu badanna waxaa bixiyey Cuthmaan ibnu Cafaan radiyallahu canhu. Cuthmaan ibnu Cafaan radiyallahu canhu intuu 1,000 diinaar keenay ayuu ku shubay rasuulka sala allahu calayhi wasallam dhabtiisa. dabadeetana rasuulku sala allahu calayhi wasallam intuu ku farxay ayuu 1,000 diinaar saa u rogrogay. markaasaa wuxuu yidhi, Cuthmaan ma dhibayo, maanta wixii ka dambeeya wuxuu sameeyey dembi. wakhtigaasina wakhti adag ayuu ahaa. dabadeeta rasuulka sala allahu calayhi wasallam waxaa u yimi 7 fuqaradii Madiina ka mid a, iyagoo doonaya rasuulku sala allahu calayhi wasallam inuu gaadiid siiyo si ay duulaanka uga qayb qaataan. rasuulku sala allahu calayhi wasallam wuxuu ku yidhi, laa ajidu maa axmilukum calayh, ma helayo waxaan idinku xambaaro oo aan idinku qaado. dabadeetana tawallow wa acyunuhum tafiidu min addamci xasana, way jeesteen iyagoo indhahoodu ay burqanayaan ilmo, murugo daraaddeed, iyo inaanay helin waxay duulimaadkaa ku raacaan. dabadeetana ciidankii wuu dhaqaaqay ilaa uu Tabuuk gaadhay. Madiina rasuulku sala allahu calayhi wasallam wuxuu kaga tegay Caliy bnu Abi Taalib. dabeeta rasuulku sala allahu calayhi wasallam calankii wuxuu dhiibay Abubakar. haddaba markii la baxayey ee rasuulku sala allahu calayhi wasallam ciidankii uu diyaariyey, waxa u yimi koox munaafiqiinta ka mid ah, iyagoo hore isugu soo yidhi, war wakhtigan kulaylaha ah ha bixina. hadalkoodiina qur-aanka ayaa lagu sheegay, wa qaaluu laa tanfiruu fi lxar, waxay isku yidhaahdeen ha u bixina kulaylaha. qul waxaad ku tidhaahdaa nebi maxamedow, naaru jahannama ashaddu xarra, naarta jahannama ayaa daran xagga kulaylka, low kaanuu yafqahuun, hadday garanayaan. waxaa duulimaadkaa ka hadhay Cabdullaahi ibnu Ubay iyo munaafiqiin kaloo fara badan. qayb munaafiqiinta ka mid rasuulka ayay u yimaadeen iyagoo cudur daaranaya. dabadeetana rasuulku sala allahu calayhi wasallam uu cudur daaray. ilaahayna subxaanahu wa tacaala rasuulka ayuu canaantay oo wuxuu ku yidhi, cafa allaahu canka, ilaahay waa kuu dhaafee, lima adinta lahum, maxaad ugu oggolaatay inay ka hadhaan dagaalka, xataa yatabayana laka aladiina sadaquu, ilaa ay ku kala caddaanayso kuwa run sheegaya, wa taclama alkaadibiin, aanad ka ogaanayso kuwa beenta sheegaya. innamaa yasta'dinuka aladiina laa yu'minuuna billaahi walyowmi alaakhir, waxaa fasax ku weydiisanaya kuwa aan ilaahay iyo maalinta aakhira rumaysnayn. wartaabat quluubuhum, qalbiyadooduna ay shakisan tahay. fahum fii raybihim yataraddaduun, yagu waxa ay ku dhex noqnoqonayaan shakigooda. ilaahay ayaa ku beeniyey oo yidhi, walow araaduu alkhuruuja la acadduu lahu cuddah, hadday doonayaan inay baxaan oo ay dagaalka ka qayb qaataan way u diyaargaroobi lahaayeen. walaakin kariha allaahum bicaahahum, ha yeeshee ilaahay ayaa kahday inay soo baxaan oo ay isdiraan. fathabbatahum, wuu sugay oo dagaalka ayuu ka reebay fulaynimadooda iyo wahsigooda daraaddii. wa qiila qacuduu maca alqaacidiin, waxaana lagu yidhi fadhiya oo kuwa dagaalka ka fadhiista ee dumarka iyo carruurta ah la fadhiya. dabadeetana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qanciyey dadkii mu'miniinta ahaa, low kharajuu fiikum maa zaaduukum ilaa khabaala,
hadday idin raaci lahaayeen idinmay kordhiyeen fasahaad mooyaane wax kale wala awdacuu khilaalakum dhexdiinnana waxay dejin lahaayeen isku dir yabquunakum alfitna xaal ay idinla doonayaan inaad fitnowdaan wa fiikum idinkana waxaa idinku jira haddaad saxaabada tihiin sammaacuuna lahum kuwa aad u dhegaysta oo warkaa ay sheegayaan rumaysta wallaahu caliimun biaalimiin ilaahayna waa u aqoon badan yahay kuwa daalimiinta ah deetana rasuulku sala allahu calayhi wasallam markii uu waayey ciidankii la sheegayey wuu soo noqday haddaba rasuulku sala allahu calayhi wasallam intuu duulaanka ku maqnaa ayaa koox munaafiqiinta ka midii waxay sameeyeen masaajid si rasuulku sala allahu calayhi wasallam markuu soo noqdo uu ugu tukado masaajidkooda dabeetna rasuulku sala allahu calayhi wasallam markuu soo socday ayay ka hor tageen iyagoo ka dalbanaya in uu ku tukado masaajidka ay sameeyeen intaa kadib rasuulka sala allahu calayhi wasallam ilaahay ayaa waxyooday oo u sheegay masaajidkan inaan loo dhisin daaco iyo khayr laakiin loo dhisay dhibaato allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل والذين اتخذوا أي ومنهم منافقين توحى كمده الذين اتخذوا كوا السمايستي مسجدا مساجد ضرارا لبات دراديد أي دونيا إني مسلمين تلباتيان وكفرا قال لما دراديد أي إلهي دينتي سكقالوبين وتفريقا بين المؤمنين يكالجين أي مسلمين تدونيا إني كالجيان دراديد وإرصادا يرفيس إني يقدقان لمن حارب الله ورسوله عد إلهي يا رسول كيس لدقالنتي من قبل هري لدقالنتي ولا يحلفن إله بان كدارتي ويدارنيان أي قائلين حال إليهين إن أردنا إلا الحسنى وناق مويانا وحكا لأقل متشدنه والله يشهد إنهم لكاذبون إلهينا وأكسون يهي إني بينا لياليهين لا تقم فيه أبدا ولقاها استاق لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه مساجد الله كعبس لقول سيمان انتي الرئيسي أيام مضن إناد استاقته واتكو عباديسته فيه رجال يحبون أن يتطهروا مساجد كاد حديث وحا كسغان رق جعل إنا إصطاهريان والله يحب المطهرين إلهنا وحو جعل يهي كو إصطاهرية مساجد كاسنا ومسجد قباء تبدأتنا إلهي سبحانه وتعالى هل كاس أيوك كشفي مساجد كي أي منافقين تلسان والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك